السلام عليكم أصحابتي وإذن سلامي taxanaha jacayl qadareer ama tashaak buudanis waxaa ka soo baxay war aad weyn taasoo gilgilay taxanaha ama sheekada taxanaha ay sabab u noqon karto in ay isbedesho ama isbedel weyn ay isku sameyso intaynu gudagalin muuqaalkeena maanta waxaan idin leeyahay muuqaalka like noo saara haddii aadan inaga mid ahaynna channelka subscribe dhaho gabalaalkana u fursa ee muuqaalkeena isla waqtiga aan soo gelino kuu soo gaaro marka aynu gudagalno muuqaalkeena maanta xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha laga soo bandhigo waxaa xabsiga loo taxaabay ama la geeyay Shariif Fartuuna kaasoo ahay halka kaliya cadow ee dhaqaaqaya oo haddana reer ku jaariye nafta u keenaya waxaan aragnay in asiga xabsiga la geenayo taa waxay ka dhigan tahay ma Shariif Fartuuna ama salka si toos ugu bixi doono mise dib ay u soo laaban doonaa oo xabsiga uu ka soo bixi doonaa sidii xalqadaha horeba aan ku aragnay maadaama taxanaha ku bilaawday asigoo xabsi ku jira maadaama uu dilay ku jaari aabihiisa warbaahinta ayaa waxay shaki gelisay ama qalqal ku furtay daawadayaasha taxanaha kuwaas oo hadda u qaybsamay laba qaybood waxaa la sheegayaa in Shariif Fartuuna oo si toos ugu bixi doono taxanaha taasi ilaa hadda war xaqiiqa maaha balse wax walba la sheego waxba ka jira marka sida la filayo waxay u ekaan doontaa waa inuu ka baxaa mise waa inuu dib ugu soo laabtaa xataa haddii dib ugu soo laabanayna waa inuu muddo maqnaadaa markii ay dareemaan in taxanaha oo hoos u dhici rabo ee hal mar ka kor keenaan Shariif Fartuuna taasna waa fikrad kale oo aad wanaagsan haddii sameynayaan waayba kulli waa arkayna si sameeyaan waan isla joognaa Soomahan dhinaca kalena warbaahintu waxay sheegayaan in Faatix Fartuuna oo ma doono oo Shariif Fartuuna booskiisa hadda uu ka tagaayo maadaama hadda Shariif Fartuuna la xiri kulli hadda reer ku jaariye masaadin cadow kale ma laha oo heshiis waaba labada famil marka waxaana loo baahan yahay qof aadin lafta oo keeni kara oo ka adag inkastoo awood inta badan hadda la sii laakiin Faatix Fartuuna markii uu imaado waxaa la filayaa inuu ka darnaa doono Shariif Fartuuna xitaa caadilka uu ka darnaa doonaba xitaa waxaa la sheegayaa kaliya inuusan halis ku ahaan doonin bacdowgiisa oo ah caadil xitaa familkiisa ama kuwa u dhowba oo halis ku ahaan doona isagana sida ii muuqata masaa qiyaasayna waxay ka dhigan tahay maadaama Shariif hadda xabsiga la geenayo in lagu gogol xaarayo inuu soo bixi doono doorkan Faatix Fartuuna maxay hal mar laba awood ma isla soo saari kara sida ay ila tahay maadaama Shariif Fartuuna intuu joogana midkaan in la qabsado oo saxarakay taasna goonideeda kala ma naqanayso marka waxay la egtahay in Shariif Fartuuna xoogo dib loo dhigayo muddada xabsiga ku jirnay midkaan uu baashaali doono midkaan markii xoogo awoodiisa yaraanaysana laga yaabo markaas in Shariif Fartuuna dib loo soo celiyo isagana kulli hadda su'aashu weyn dadka soo weydiinayaan waxa weeye in Shariif Fartuuna oo musalka ka bixi doono iyo in kale maxaa yeelay aktarkaas aad bay u doonayaanba inuusan sheekada ka bixin midasna walaac badan bay ka muujinayaan oo waxay doonayaan inuu ninkaasi weli musalka ku sii jiro balse wax walba waa arkayna sida ka dhigaan adinkana waxay ra'yigeena iyo fikradiina waxa ay noola wadaagi karteen dhaqoosa commentiga haddii aad ka heshana muuqaalkan waxaad samaysaa muuqaalka like inoo saar inoona share garee si aan meel dheer u gaarno haddii uusan subscribe ku ahayn subscribe dhaho kambalkan u fursa muuqaalkeena isla markii aan soo dhignaba kuu soo gaaro waqti kasta oo soo dhigno haddii ay ku jiraan channelkana team jacayl qadareer ama tashaak buudanis ismoojiyo muuqaalka like saara si baadinkan ila hadlaya kulli muuqaalkan kaligiisa ayuu quseeyaa marka adinkana dadaalahay ka dhex muuqda dadka intaan kaga kulmayna muuqaalkiisa xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo